kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkan waa channelkan YouTube-ka xulashada wararka waa maalmo Khamiis waana 27 bisha 2 sanadka 2020 qodobada wararka ugu waaweyn maanta wararkeen aad ku daawo doontaan waxa ka mid noqon doona Jubbaland oo ciidamadii ugu badnaa u dirtay degmada Beled Xaawo iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Beled Xaawo iyo cabsi dagaal halkaas ka jirta tirahaan intee gaarayeen ciidamada Jubbaland halkaas loo diray macluumaad ku saabsan xaaladda Beled Xaawo Axmed Madoobe waxa uu xiray nin xil wasiir u doontay waa kee shakhsigaasi xabsiga loo dhaadhiciyay oo macluumaad gaar ah kaga haya ciidanka dawladda waxay isku geedaameen xarunta NGO saldhigga ugu weyn Ahlusunna iyo Sheekh Shaakir oo durba la sheegay in la soo xiri doono xaaladda Dhuusamareeb aad u qasan ayayna eegi doonaa iyo gudoomiyihii hore Dhuusamareeb ugu magacaabna Ahlusunna xabsiga loo dhaadhiciyay Puntland waxa ay sheegtay haddii ay dawladda federaalka ciidamada haram cad ay geysay gobolka Mudug ayna in halkaas geey doonaan ciidamada Shabeellaha Uhuru Kenyatta 14 maalmood ayuu qabtay Soomaalida Kenyaanka ah waxa kale oo qaybka gudoomiyaal degmo oo nafsadooda kala cararay ciidanka haram cad ee dawladda Soomaaliya hogaanka Al-Shabaab waxay soo saareen fariin ku socota dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta kamid noqon saaxiibada sida joogtada ugu xiran channelkeena YouTube-ka ee xulashada subscribe inoo dheh gambaleelkaas inoo taabo wuxuu ka saacidayaa in halkan aad ka hesho macluumaadka wararka iyo waliba xaaladda siyaasadda Soomaaliya aan ku hormaro wararkii ugu dambeeyay Jubbaland iyo xaaladda ayaan eegi doonaa ee Beled Xaawo maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwooda gaar ahaan ciidamada daraawiishta ay u direen degmada Beled Xaawo ee gobolka Asagada ciidamadan oo ku hubeysanaa gaadiidka dagaalka ayaa xalay goor dambe waxay gaareen degmooyin kamid ah gobolka Asagada gaar ahaan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Asagada halkaas ay ku sugan yihiin ciidanka dawladda dhinaca ka joogaan dhinacna ay ku sugan ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulkaasi Cabdirashiid Jaran warka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidamo hubeysan oo ka baxay Doobley ay ku biireen ciidanka daraawiishta ee Jubbaland ay ku sugan duleedka magaalada Beled Xaawo ee gobolka Asagada hay'adaha ammaanka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamadan ay xasilooni iyo waliba deganaansho ay ku soo dabaali doonaan deegaanada maalmaha la soo dhaafay ciidamada dawladda ay ku daabuleysay qaybo kamid ah gobolka Asagada sida uu ogaaday channelkeena xulashada ciidankan oo ka soo baxay Doobley ayaa soo maray deegaanka Diif Gerille Ceelwaaq waxaana ugu dambeyn ay si nabadgelyo u gaareen degmada Beled Xaawo ee gobolka Asagada waxaana la sheegay in ciidamo badan oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ciidamadan gaaray magaalada Beled Xaawo ayaa ku soo aaday xilli magaalada madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose halkaas uu ka wada ololaha oo kaga hortagayo damaca dawladda ee ku saabsan qabsashada deegaano kamid ah gobolka Asagada iyo Jubbada Hoose inkastoo ciidamada dawladda ay gacanta ku hayaan badi degmada Beled Xaawo iyo guud ahaanba gobolka ayaa haddana laga cabsi qabaa in halkaas uu ka dhaco dagaal dhaxmara ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo maalmihii dambe diyaarado ciidan halkaas lagu geeyay wixii warar dheeraad ah ka soo baxay ciidamadan halkaas lagu daadguriyay saaxiibayaal isla wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan wararka la xiriira Jubbaland intaan ka bixinay ee Axmed Madoobe waxa uu xabsiga u dhaadhiciyay nin xil wasiir ah u doontay am in jago wasiir u magacaabo u doontay madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa la sheegay in uu amar ku bixiyay in la xiro Maxamuud Axmed Ibrahim Gelle oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta ama xubno xil u doontay gaar ahaan wasaaradda Masar Gelle ayaa doonayay in xilka wasiirka garsoorka ee Jubbaland oo ay saaxiibo yihiin Axmed Madoobe in loo magacaabo waxaana la sheegay in wasiirka uu Axmed Madoobe ku wargeliyay in xilkaas uu ka soo doontay loona doonay in loo magacaabo una xukuumadda Soomaaliya ay saaxiibo wada yihiin ayna ka shaqeyn doono isku soo dhaweynta maamulkiisa iyo waliba xukuumadda Soomaaliya wasiirka ayaa dalbaday waa madaxweynaha ayaana dalbaday in la xiro Masar Gelle oo maamulkiisa soo geliyay qalalaaso iyo culeys siyaasadeed oo aan hore ka jirin sida la sheegay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda qoyska sarkaalka la xiray ayaa ayna Axmed Madoobe ka dalbaday in la sii daayo maadaama uu nin shakhsigooda ku matalaya soo doontana xil wasiir Maxamuud Axmed Ibrahim Masar Gelle waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah wuxuuna aaminsan yahay inuu ka aragti duwan yahay madaxweynaha Jubbaland isbedel uu horseedi karo waa haddii uu ka mid noqdo wasiirada maamulkaasi laakiin odayaasha dhaqanka ee beesha ka soo jeeda Gelle ayaa Axmed Madoobe hadda ku cadaadinaya sidii xorriyadiisa loo sii lahaa Axmed Madoobe ayaa ninkan u arkay inuu yahay shakhsi ay soo dirtay xukuumadda Soomaaliya waana sababta uu ku muteystay in xabsiga loo dhaadhiciyo
waa hagaag warkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa xaaladda Dhuusamareeb iyo weliba ciidamada dowladda oo isku geedaamay xarunta inji wadaadka Sheekh Shaakir ayaana suurtagal ah in saacadaha soo socda xabsiga loo dhaadhiciyo. Xiisadda halkaas ka jirta ayaan markan wax badan aan ka eegi doonaa. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa xalay isku geedaamay xarunta inji oo hoyga magaaladaas uu ka degan yahay hogaamiyaha Ahlus Sunnah Sheekh Maxamed Shaakir oo sheegay inuu yahay madaxweynaha Galmudug. War ay heshay janaalkeena shabakada wararka ee xulashada ayaa sheegaya in Muqdisho la amray in la keeno hogaamiyaha Ahlus Sunnah isaga oo ciidamada ammaanka ay soo qabtaan. Madaxweynaha Galmudug oo asnaax Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa maalmihii dambe waxa uu qorshe awoodiisa maamul ku fidinayo qaybo ka mid ah magaalada Dhuusamareeb. Ciidanka dowladda ayaana isku geedaamay xarunta inji waxaana heega la geliyay dhammaanba ciidanka Ahlus Sunnah ilaalada ku haya xaruntaas inji. Waxaana laga cabsi qabaa in xarunta inji gudaheeda uu ka dhaco dagaal dhexmara ciidanka dowladda iyo Ahlus Sunnah. Ciidamada dowladda Soomaaliya xalay waxay xireen gudoomiyaha Ahlus Sunnah u qaabilsanaa Dhuusamareeb. Haddaba waxaan eegaynaa xariga gudoomiyahaasi iyo sababta keentay in ay ciidamada ammaanku ay xabsiga u dhaadhiciyaan. Warkii ugu dambeeyay naga soo gaaray Dhuusamareeb caasimadda Galmudug ayaa sheegaya in halkaas lagu xiray gudoomiyihii hore ee degmada Dhuusamareeb ee ugu magacaabnaa ururka Ahlus Sunnah Axmed Waalid Cabdalla. Gudoomiyihii hore waliba xubno la socday ayaa la sheegay in ay xireen ciidamada dowladda Soomaaliya ay geysay magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug. Xubnahan la xiray ayaa xilliga la xirayay waxay ka soo baxeen xarunta inji oo ah saldhigga ugu weyn hogaanka Ahlus Sunnah halkaas oo ay kulmo ka socdeen. Waxaana la sheegay in madaxweynaha Galmudug oo amarkan uu soo bixiyay Qoorqoor in xabsiga loo dhaadhiciyo xubnaha Ahlus Sunnah ay ugu magacaabaan halkaasi. Sababta loo xiray xubnahan ayaa lagu sheegay inay tahay amar ka soo baxay madaxweynaha iyo waliba xubnaha ugu sarreeya maamulka laguna amray in la xiro dhaqdhaqaaq dhammaanba xubnaha kale u dhaqdhaqaaqa Ahlus Sunnah. Sidoo kale amarka soo baxaya waxaa qayb ka in xarunta inji gacanta dowladda soo gasho. Hogaanka ururka Ahlus Sunnah ee kasoo horjeeda maamulka Galmudug ay dowladdu ayna sidoo kale dowladda ka soo horjeeda ayaana weli wax war ah ka soo saarin xariga gudoomiyahoodii ugu magacaabnaa Dhuusamareeb. Xariga xubnahan Ahlus Sunnah ee ka soo jeeda xubnahan Ahlus Sunnah ka tirsan oo kamid ah gudoomiyihii Dhuusamareeb iyo xubnahan lagu xiray ayaa imaanaya xilli magaaladu ay ka jirto xiisad culus oo u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo Ahlus Sunnah gaar ahaan ciidamada dowladdu halkaasi geysay ee ka amar qaata madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Puntland xaggeeda haddii aan eegno maxaa saaki waxaa ka cusub sarkaal u hadlay booliiska Puntland waxa uu sheegay haddii dowladdu ciidamo haram cad ay geyso gobolka Mudug waxa uu sheegay in dhankoodana ay geey doonaan ciidamo Shabeelle ah. Xiisad ayaa ka jirta gobolkaasi Mudug. Taliyaha ciidanka booliiska ee dowladda maamulkaasi Puntland Jenaraal Muxudiin Axmed Muuse oo wareysi gaar ah siinayay mid ka mid ah warbaahinta Puntland ayaa ka warbixiyay howlgal culus oo booliisku ay ka bilaabeen magaalada Garowe caasimadda. Taliyaha booliiska ee Puntland Jenaraal Muxudiin Axmed Muuse ayaa sheegay in ammaanka deegaanada kala duwan ee maamulkaasi uu yahay mid la isku halayn karo. Ammaankuna yahay mid ciidamadu ammaanku ay sugeen wax badan laga bedelay. Taliyaha ayaa sidoo kale ka hadlay howlgaladii ugu dambeeyay ciidamadu ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Garowe caasimadda maamulkaasi. Jenaraal Muxudiin ayaa ka hadlayay warar soo baxay oo sheegay in dowladda Soomaaliya ciidamo badan ay geysay qaybo ka mid ah gobolkaasi Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo qaybo ka mid ah ama magaalada Gaalkacyo oo ah magaalo kala qaybisa labada maamul Puntland iyo Galmudug. Xaqiiqdii dowladdu haddii ay keento ciidamo haram cad ah annaga waxaan diyaarinay ciidamo Shabeelle oo iska difaaca waxaan ciidankan u diyaarinay difaaca dhulkeena waana geyn doonaa Gaalkacyo ayuu yiri taliyaha. Gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Mudug ee Puntland oo wareysi gaar ah hore u bixiyay waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya wado qorsho ay ku doonayso in guud ahaanba gobolkaasi Mudug gacanta dowladda uu soo galo. Dowladda Soomaaliya waxa ay hore u geysay ciidamo gobolkaasi Garowe oo hadda xaalado qalalaaso amni ah ka jiro. Puntland ayaa walaac badan ka muujinaysa hadda ciidamadan badan hadalhaynta ugu badanse waxay tahay ciidamada dowladda federaalka ay geysay magaalada Gaalkacyo. Arrintan ayaana timid kadib markii Puntland ay sheegtay in ciidamo badan ay u daabuli doonto halkaasi ay kaga hortagaan khatarta dowladda.
qabaha dambe ee wararkeena ayaa saaxiibayaal soo gaarnay. Hogaanka Al-Shabaab waxa uu soo saaray fariin ku socotay dad Soomaalida ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ururka Al-Shabaab ayaa soo saaray digniin culus oo ku socota Soomaalida ku nool wadankaasi Kenya iyo waliba dowladda Kenya, iyagoo fariintan u diray dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Warbaahinta Al-Shabaab ayaa baahisay codka afhayeenka ururkaasi Cali Maxamuud Raage oo arintani ka hadlaya muddo wuxuuna muuqaal uu soo duubay oo 20 daqiiqo ah uu kaga hadlay arinta gobolka Mandera, asagoo sheegay in deegaanadaasi dadka muslimiinta ku nool aysan waxba yeelan doonin, laakiin dadka Kenyaatiga ama muslimiinta ahayn dhibaato ay la kulmi doonaan. Ayadoo laga soo duubay muuqaal 20 daqiiqo ayuu Cali Dheer ugu hanjabay dadka reer Kenya ee ku sugan gobolka Waqooyi Bari. Afhayeenka Al-Shabaab ayaa sheegay in haatan dowladda Kenya ay ku jirto xaalad rafasho dadka muslimiinta, waxaan ugu digaynaa in ay kaniisadaha iyo goobaha kale ay ka fogaadeen, ayuu yiri Cali Dheere. Sidoo kale sarkaalkan oo hadlay Al-Shabaab ayaa dadka ku nool gobolka Soomaalida ee NFD ugu baaqay inaysan ku kalsoonaan siyaasiyiinta gobolkaasi ku matalaya dowladda dhexe ee Kenya, wuxuuna sheegay in kuba tuuga dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, gaar ahaan dhulka jira NFD. ayuu afhayeenka Al-Shabaab kula taliyay in ay ku tashtaan walaalooda Shabaab, waxaana kalsooni ku qabnaa ayuu yiri in aan Kenya ka awood roonaan doono dagaalka aan kula jirno, ayuu yiri afhayeenka. Qaybta dambe ee hadalka Cali Dheere waxa uu kaga hadlay weerarada Al-Shabaab ee maalmihii dambe ay ka geysanayeen saldhigga military ee Soomaaliya, gaar ahaan Ceel Saliini, Qoryoole iyo deegaano badan oo Shabeellaha Hoose ka tirsan. Afhayeenka Al-Shabaab waxa uu sheegay in 3 weerar oo ay hal maalin ka fuliyeen Shabeellaha Hoose ay ku dileen kumanaan kun oo ka mid ah askarta dowladda, hub iyo gaadiid badan ay ku soo qabsadeen. Warka Cali Dheer ayaa amaanaya xilli weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ku weerareen qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose iyo gudaha Kenya ay guulo military ay ka sheegteen. Ugu dambeyn saaxiibayaal 14 maalmood ayuu Uhuru Kenyatta u qabtay Soomaalida ku nool wadankaasi Kenya ee sheekadan. Madaxweynaha wadankaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hogaamiyaasha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ee Soomaalida waxa uu qabtay 14 maalmood inay la yimaadaan wax ka bedel qorshooda ku saabsan xaaladaha amniga halkaas iyo waliba ka hortagga weerarada argagixisada ay ka geysanayaan gobolka. Uhuru Kenyatta ayaa dalbaday in isbedel ay la yimaadaan gaar ahaan gudoomiyaasha gobolada Waqooyi Bari Kenya u qaabilsan sida gudoomiyaha Mandera Cali Robo iyo waliba gudoomiyaha kale ee Garissa iyo xubno kale oo hay'adaha ammaanka, asagoo sheegay in aan la aqbali karin in Kenya waa in Al-Shabaab ay kordhiyaan weerarada gudaha Kenya ay ka geysanayaan gaar ahaan xadka, wuxuuna amray in 14 maalin haddii isbedel ku sameyn waayo in xilalkooda laga qaadi doono. Sida wargeyska The Sun ee ka soo baxa Kenya, madaxweynaha ka soo xigtay waxa uu madaxweynaha xubnahan u sheegay in falalka argagixisada ee gobolka ka socda ay tahay waxaan la aqbali karin, asagoo sheegay in loo baahayo in tallaabo ay qaadaan. Sida uu sheegay dad goobjoogayaal ah, Uhuru Kenyatta ayaa u sheegay mas'uuliyiinta Soomaalida in hay'adaha ammaanka Kenya ee gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo waliba gobolada dhaca xadka Soomaaliya ay leeyihiin in loo sheegay in fursad u haysan 14 maalmood ay wax ka bedelaan amni xumada iyo qalalaasaha ka jira. Dowladda Kenya ayaa ciidamo dheeraad ah geysay gobolka, hase yeeshee waxaa muuqata cabsi badan oo ku saabsan in Al-Shabaab halkaas weerar ay ka geystaan. Macadda sida hogaamiyaasha Soomaalida hadda u xalin karaan hanjabaadda Uhuru Kenyatta. Warbixintan ayaa ugu dambeysay daawadayaal wararkii maanta aad ka daawaneyseen kanaalka YouTube-ka xulashada wanaaganta.